dabeecad ahaan waxaa lagu tilmaamaa qof dabacsan, sheeko iyo farxad badan, runta aan ka xishoon, Soomaalinimadana aad u jecel. Maryan Mursal Ciise Bootaan waxay ku dhalatay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug sanadkii 1950kii. Maryan 6 sano kadib waxay u soo wareegeen iyadoo qoyskeeda caasimadda Soomaaliya. Waxay fanka bilowday iyadoo 14 jir ah. waxayna Radio Muqdisho ku soo biirtay 1965tii. Imtixaanka laga qaaday ayay kaalinta koowaad ku soo baxday. Heestii ugu horeysay oo ay tartanka uga qayb gashay waxaa lagu magacaabi jiray Indha Caashaq, waxayna sidaas ugu mid noqotay fanaaniinta qaranka Soomaaliya. Maryan Mursal Ciise waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay fanaaniinta Soomaaliya kuwooda ugu wanaagsan. Heesaha ay qaaday waxay isugu jiraan jacayl, wadani iyo kuwa ka hadlaya dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed. Waxaa ka mid ah heesaha Maryan bari hore waxaa jiray